اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف dadka hawada raaca oo xaqa ka bayra dhamaantood waa khawaarij waxay ku kala duwan yihiin waa magaca waxay ku midaysan yihiin waa seef intay qaataan inay muslimiinta la dhaxgalaan in ummadda laayaan xagee ka soo bilaabeen saxaabadii waxay dileen laba khalif Uthman ibn Affan iyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxay dileen saxaabadii la xaadiray ghazawaadkii salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxay banaysteen dumarkii oo maxaa la yiraahdaa ay ku xadgudbeen ilmihii bay laayeen bal ilma caloosha ku riday soo rideen oo dileen heerkaas ay gaareen markaasay saxaabadii la dirreen oo la dagaalameen ilaa iyo inta ay baabi'iyeen waxa weeye nabiguna waa sheegay salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo wuxuu yiri idaa laqituhum la aqtulannahum qatla aad hadii aan la kulmo waan leenayaa waa uu ka digay firqadii ugu horeysay marka iyo bidcadii ugu horeysay iyo midii ugu horeysay oo soo baxday fitna ummadda ka dhax kacda ahayd waa fitnada maanta aan hayno oo fitnada khawaarijta shabaab iyo daacish waa fitnada sheeganaysa diin ilaahay diinta cagsigeedana u socota waa fitnada sheeganaysa shariico ilaahay kitaabkiisana burburinaysa waa fitnada sheeganaysa jihaad ummadii muslimiinta ahayd baabiinaysa waa fitnada sheeganaysa islaax arladana fasahaadinaysa maxaas iyo meesha la yiraahdo wabxa maxay ka sameeyeen ceelal ba intay u yimaadeen ba waxay ku shubeen digir ay waxa weeyo soo qooyeen oo ay qurmiyeen ujeedadu maxay tahay ceelka inuu xumaado oo tan iyo isha uu ka soo burqanayo uu ka fasahaado oo dibdaba loo cabin barkadii biyaha ay ku jireen ba intay u yimaadeen ba waxay ku sii daayeen booyado waxa la yiraahdo milix ama cusba bay ku sii daayeen fikirka noocaas jihaad ba dhaqanka noocaas ma islaamnimo ma alla aqoonnimo jawaabtu waa maya xagee laga keenay gumaystii faransiiska markii jazaa'ir uu gumaysanayay ayaa waxyaabuhu ku ciqaabay waxa ka mid ahaa inuu ceelasha ka dumiyo kana qurmiyo ceelkan intee kharasha ku baxday haddii la doono dadaan muslim ahayn baaba u dhisayba dadka kana u qoday si ay haraadka uga badbaadaan intay u yimaadaan ba meesha ceel u qodi lahaayeen ama gargaari lahaayeen ba xogaagii ay heleen bay ka fasahaadinayaan ومع ذلك maxay leeyihiin waxa weeye in sheeg inma nahnu muslihun annaga wax hagaajinayna bay leeyihiin dibka intay noo geysteen waa inta su'aalaha jiray horaan u weydiiyay oo ku saabsana inay yaqaanaan inta ay dileen maanta su'aalo kale ay yaala su'aalahaas waxay tahay annaga ma noo tirsan tahay dibkay noo geysteen dawladda ma u tirsan tahay dibka ay shabaab noo geysteen aqoonyahanka ma u tirsan tahay dibka ay shabaab noo geysteen qalinleyda ma u tirsan tahay dibka ay shabaab noo geysteen mise xaalku waxa weeye yaani waxa la yiraahdo jugtaada qarso iyo nabi baaba banaan xasuusano imise ruux bay dileen imise ruux bay qarxiyeen imise qarax bay geysteen ama ha u suurta gashay inay wax ku dilaan ama inay daayaan tirako bal laga hayaa imise madax jabis ku dileen imise ceejin ku dileen imise ilmo yar yar ay waxa weeye gubeen iyo dumar ay gubeen imise dhaawaceen imise dhaawaci maanta naafa u ah oo mujtamaca culays ku dul ah oo in la kaalmeeyo ma ogiye aanan danahooda qunsan karin imise ayaa dhaawacyada u geysteen muddo kadib u dhintay imise u waashay imise ayaa u waashay oo madaxa looga jiraa imise wadanka intay aamini waayeen iyaga daraadood uga qaxay oo malaayiin min albashar 2011 markay abaartu dhacaysay baay iyo bakool waxay ku soo rogeen iyo gado cunaqabatayn mucaawanaadkii in loo geeyay u diideen ayaguna inay boobaan ma ogiye inay wax siiyaan waa diideen dadkii maxay sameeyeen 70,000 oo qoys ka badan baa ka qaxday dalka oo waxay aadeen dalalka dariska ah dadkaas maanta maxay yihiin dalal kala tirsanayo oo ay tirsigooda buuxinayaan lambarka intaas la eg 70,000 waxaad ku dhufataan min 7 ruux markay ugu yar yihiin qoyska Soomaalida tirahan waa intee waa lambar ka maqan ummadii weeye imisa ayaa ganacsi iyo dhaqaale malaayiin ah dalka ka qaxayo dalal kale maanta lagu dhisahaya dalal kale lagu horumarinaya dalal kale ay ka faa'iideysanayaan imisa milyan oo intay ku soo daareen qurbihii rabay inay soo laabtaan oo aqoon soo helay oo khibrad soo helay oo ilbaxnimo soo helay oo soo laaban lahaa bay ka hortaagan yihiin ama ka hor istaageen oo u weeciyay soo noqoshadoodii wadamo kale oo dalal kale ay xuquuqdoodii cilmigoodii ka faa'iideysanayaan
waddankooda keliyana aan soo aadi karaynin imise walaalayaal dhibka noocaas ah oo dhan aad arkaysaan waxa wax walba ka daran inay ku samaynayaan bismi islaam waxaan islaamkii baa qaba inaan dadka layno inaan qarxino inaan tashwiihino inaan dhibaatayno in la seexan waayo in la safri waayo in waxa weeye liisu imaan waayo islaamkii baa qaba waa ku dilaynaa islaamkii baa qaba masaajid baa hadda xiran qaraxii ay ku burburiyeen oo ku yaala waxa weeye zoobe agtiisa ku yaala oo qaraxii ugu dambeeyo hadda ay geystaan jumco maanta laguma tukanayo limaada waa burburka ay geysanayaan oo goobihii cibaadadan xitaa ka badbaadaynin ومع ذلك maxay leeyihiin ilaahay baa sidaas qaba subhanahu wa ta'ala marka diintii baa lagu been abuuranaya aayad baa jirta culimadu ay soo daliiliyaan oo yiraahdaan nimankaas ay ka hadlaysaa markaad fiiriso aayadda waxa ku soo baxaya say isula quman yihiin iyo sida aayaddu ay wasfigooda u tilmaantay ilaahay muxuu leeyahay qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما يدي كورما كوا أقول خسارة بدن عمل كوا أقول ليتا كوا فلسي كوا آير وجبنا النفط ودي خساريي لفه دي اللميي أو خاسرين تسوى مع إلهي باشري قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يعني بيدين شيغا كوا خساري والنفط ودي إيلكودي بخساري قفك مركو خسارة ودرا ومركي لفوه كلمان وحو يري رب العزة سبحانه وتعالى خسران كنبتا كاسوية دوشا وحا كمريا هر عذابه hoosana waxa ka maraya har cadaaba ayaa ka maraya labada cadaab bay ku dhex shiilmayaan ay ku dhex jiraan buleeyay aayadan quraanka fi suurati al-kahf ilaahi muxuu leeyahay alladina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa kuwa socodkoodi dadaalkoodi shaqadoodi juudigoodi oo kulumay noloshan adduunyada dhexdeeda wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ayagoo isu haysta inay khayr ka shaqeynayaan oo wanaag ay sameynayaan oo ay jihaadayaan oo shariicada ay kor u qaadayaan baa haddana shaqadaas iyada ah waxay dhaxal siinaysaa inay khasaariyaan lafahoodii oo jahannama ay ku dhex khasaariyaan ilaahay muxuu ku sheegay waa xukumayo ulaa'ika alladhiina kafaruu biaayati rabbihim wa liqaa'ih kuwaas waa kuwa aayaadka alle ku gaaloobay iyo la kulankiisa markaad fiiriso say u dhaqmayaan muslim baa sidan yeelo kugu soo dhici maysa marna laakiin ahlu sunna wal jamaaca nahayo xukun kula degdegi mayno intay saxaabada ka yiraahdeen baynu ka leenahay bal khulafada baynu ka leenahay walow culimo gaalaysiisana ay jiraan oo markii saxaabada ay arkeen say wax yeelayaan ali bay weydiiyeen waxay dhaheen akufaarunhum magaala waxa kaasa wuxuu yiri la bal min al-kufri farru gaalnimadii ka cararayaan biir sidan ay yeelayaan waa gaalnimo ka carar markaasa waxay dhaheen am munaafiqunahum haddaba munaafiqiinta qowlkoodii ficilkoodii iskhilaafsan yihiin munaafiqiin baa markaasa wuxuu yiri maya لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا منافقين إلهي وحي ربي حسان كوان قرآن بي أخرينيان ذكر وذو وابدن يهي عبادة وذو وابدن تاي هبينك واسو جيدان مالك واسو ميهين هدنا الشيطان باقو فلك جبيه مقرنا إنسان محييهم إن إخواننا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم ولا لهم وأن وحد قدبين وأن لا درين وأن لا درني نبي صلوات الله وسلام عليه وقوريه إلا لا درن تذكر نعاسة إلهي محول لي فحبطت أعمالهم خير هدي سميان مع خير كودي وابري فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لو أوغي معايو وزن إيا ميزان خير له ما ننت قيامه dadku marka waa dadka noocaas ah aayada quraanka waxay ka yiraahdeen Ali bin Abi Talib ibn Kathir soo warinayo waxa uu yiri dhaxaak iyo qeyrkiisna ay soo warinayaan aayadu waxay ka hadlaysaa nimanka la yiraahdo al-haruriyya ay al-khawarij khawarijti ka hadlaysaa macna kale wuxuu imaam al-Qurtubi uu ku leeyahay ibn al-Kawwa oo khawarijta kamida ayaa Ali bin Abi Talib weydiiyay wuxuu yiri al-akhsarina a'mala maxaa laga wadaa kuwa u amal khasaarsan markaas wuxuu yiri anta wa ashaabuk adiga iyo saaxiibada marka waxa aayadu ay ka hadlayso waa khawarij oo ay nagala joogan shabaab weeye maxaa mudan marka oo banaano noo yaala
sidii uu nabigu sheegay dariiqiisa inaan ka marna salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo aanan loo daynin inay dalka kharibaan dunyada fasaadiyaan dadka laayaan waayo na bixin mayso inaan dalkeenna uga qaxno xisaaba mujrima ah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد